jacaylkeenu filim waya abidkiiba jiri doona jacaylkeenu filim waya abidkiiba jiri doona jilinkeenu been ma aha jacaylkeenu filim waya abidkiiba jiri doona jacaylkeenu filim waya abidkiiba jiri doona jilinkeenu been ma aha السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن إذا الأهانتي من كستا الدنيا أتكجوتان وحايدين ليلهاي هديها بيكوتها هبي وناكسن دماني كوتها مالي وناكسن وتيمك سمير وريكتوي ما أنت محان هنا محد سلي كرتان ضد كان ماشي صوفر يستمحيدي هايا تيك توك أيام ما أنت أدني وحنكسو قادني معناها إن يعني وعي جلين أهان نجتها نجمع حمان نجمع أهان maxaa keenay kufsiga dumarka had iyo jeer la kufsanaya maxaa keenay sababaha keenay ayaa macnaha waxaan rabnaa inaan macnaha aan ogaano sidaas darteeda waxaan aragnay waxyaabo badan ee social mediaha ee ku jira ee dhibaatada kow ee ka tahay marka haddaan nahay Soomaali waxaan leenahay caadaan leenahay dhaqanaan leenahay diin baan leenahay wax macnaha wax kasto macnaha qofka bini aadanka ah meesha ugu fiican ayaan taaganahay saan waragno dhaqankii iyo diintii waa ka talaabsanay marka maadaama dhaqan iyo diin aan leenahay waxa waay dhaqankiina waan ka tagnay diintiina maba haynaba waa sida hadda aad arki doontaan biidnillaahi tacaala bal nala daawada kilibkan yar aan ka soo qaadanay TikTok fadlan nala wadaag أصحابتها أنا قاسي بإذن الله تعالى. هاي نجح مصواد أركتها قبلنا واد أركتها إلهي بنقول أرشي قبلنا هدرتها آبا دلي ولا البلاد هاي سيدانا إسكتكتي maxaad ka dhihi lahayd arrintan horta arrintan aad uga qaldan tahay sababtoo ragga gabdhaha kufsanaya waxaa ku kalifaya ragga damiir ay leeyihiin qofka markay hayheeda daawatay gabadhaan say iska dhigaysa qaabkay jirkeedu soo bandhigayso yacni say isu jajabinayso say isu qalqaloocinayso uma haysto inay tahay gabar wanaagsan ما فهمت. والله كل ما يوال إسبلمية مركل إسبلمية ولا يسافر. نكو عوش كدايا يا جبل إنه قسم يستصود عناية. وانجز. جبل إنه وحش كدايا يسافر نكاس إنه يسد فعله. وانجز. مركل اللي بعد هذا هو إنه ماشي مسعته عن الداس. جبل ده وحال ربا إنه إلهي سو أسطورية وأسطورنا. تبديه قويه لا كل جري كريه يعني السوشيال ميديا في كجران. jirkeedii jijabinaysaa heesa intay shidatay iyadoo nooc iska dhigaysaa hadhowti ninkaas wuxuu cinda qaadsan yahay inay tahay qof okay najax ali waa ku mahadsan tahay barnaamijka sida fiican aad nala wadaagaysid najax ali waxaan aragnay kilibkan kaliya ma aha kilibiyo badan aan soo qaadnay si macnaha aan u aragno dhibaatada ay leedahay kufsiga maxaa sababay kufsiga in gabdhaha la kufsada ma sabab iyaga ay sameystaan sabab iyaga ay keensadeen mise waa sabab la'aan ee iyaga lagu raadsanayo had iyo jeer lagu ugaarsanayo waxa waaye waxa la badeeca tii banaanka taala ayay macnaha ummadda aadaa badeeca qarsoon cidna ma bicigeysa ama cidna ma dabagasha marka saas leeyahay waxa waaye badeeca banaanka taala markaan leeyahay dumarkii horta wayna dhaleen waan dhalnay zawjkeena waaye haddana iyadoo sidaa ay tahay ayaa macnaha waxaa jirta dhibaatooyinka sababta keentay in macnaha mar walba dhibaatada iyaga ay u nugul yihiin waxaa keenay gabadhii maadaama ay tahay gabar oo mustaqbal leh waxaa loo baahnaa in ay mustaqbalkeeda ilaasato oo hadduu ilaahay ku roon yahay ay ka fekerto aayaheeda damba ay ka fekerto meesha aayaheeda dambe ay ka fekeri lahayd
waxay heshay tiktok waxaan horta aan leeyahay mas-uuliyiinta Soomaaliya waxaan leeyahay tiktok Soomaaliya laga qabto haddaan Soomaali tiktok laga qabanin waxa waaye wax hagaagaya haba yaraateen ma laha bal nala sii daawada kiliibyada aan soo wadno sida u aragtaa adiga ahaantaadana fiirsanaya dhibaatada tan ma lug bay ku leeyihiin gabdhaha Soomaaliyeed mise beri bay ka yihiin oo waxa waaye dad aanan dhibaatadaasba aanan waxba aan lug ku lahayn fadlan nala daawo kiliibkan xiga inantaan sida waxay leedahay bal eeg gabadhaani waxay muujinaysaa ninkaas inay u baahantay waxay leedahay jirka timaha geli taataabo ay leedahay sax waa gartay gabadhaan hooyaa dhashay aabbaa dhalay nin ragahaa la dhashay waxaa loo gaday taleefon qaaliya waxaa la siiyey fursad qaaliya waalideynta waxaa looga baahan yahay gabadhaas intay ka hesho nin lagu aamino sooj lagu aamino oo la yidhaaho hilibkeeda iyo ilaala inta la yidhaaho inay ka warhaayaan waxa ay samaynayso sabab waxaa u ah ninka u qaaliita taleefonka qaaliga u iibiyey haddana fursadda qaaliga ugu diray oo waxa ay samaynaysa aan warkaynin taasaan u sababayaan okay waa mahadsantahay najaxay horta waa sababteeday leedahay waayo gabadhan waxay leedahay tintaada gacanta geli inta taabo يعني يلا ما قادين هيست ما إيسان قادين لكن أكشن كي بسمينيسا أكشن كي بسمينيسا وحيلا هاي معناها يدي وجهي وسالين هاي لما رها هي سبر كي قال صوح علي فيديو اللي صوح علي سنة اللي يلا يلا أي سوشيال ميديا إسكنتي وحيلا هاي قعنتها تنتي تقولي إتتاو مركا وحيل بحنا أكشن كي بحنيسا أوكي قبلنا نك صاحب كلا كل صاحب الآن معه qof bay xiriir la leedahay ninka saaxiibka la ah dareen intee la ugu qaadaya wuxuu leeyahay heestan waxa lagu qaadaba adiga macnaha ay ku dareensiinaysaa dareen ahaanteeda adiga ku dareensiinaysaa waxaad samaysaa ka falceli hadhow uu tagaa markuu u tago bixi iyada macnaha reaction ay ka bixisay ayuu macnaha asagana ku dayaaya fursad wuxuu ku helaa qol kaligiisu ku helaa gabadhaas miyuu cafinaya يعني horta xasan fan oo jira fanku gooniyo leeyahay jadwal gooniyo leeyahay laakiin anigu waxaan dhaliilayaa waalidkan in taleefoonada qaaliga gaday ku daayay hablaha yaryar oonan diin celinaysa lahayn aqli celinaya lahayn aqiido celinaysa lahayn aan naftooda celi karin ku daaya dhaliilaya waa sax fadlan asxaabay had iyo jeer waxaan idinka codsanaynaa inaad kiliibkan aad sii sheergaraysaan si ay u gaarto ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan si macnaha aan kaga hortagno dhibaatooyinka maantay ee haysta gabdhaheena Soomaaliyeed walaalaheena Soomaaliyeed hooyooyinkeena Soomaaliyeed ee had iyo jeer ku soo laalaabanay inaan ku wacyigelino gabdhaha Soomaaliyeed si macnaha mas'uuliyiinta Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in ay barnaamijkan TikTok la leeyahay ee Soomaali sida qaldan ee u isticmaasha معناها عورات كود بنانك وصل ديجان إن معناها لقى حراء ولا قام ممنوع تيك توك لقى ممنوع جودها الصومالية. ويا الصوماليين وحنا قعد سنينا إني حد يجر كور هاي سيد برتيدا لا شيء كيسته وح أي سمين يسته تعرف إنه مركز استعمال يسته أي شو قرب فريسته أي لا استعمال شو أي أوقاته وح الله وح أي سمين يسته ويدي جوكتو حاضر ساسا قعد سنينا. walaalayaal fadlan janalka nagala socotaan waa janalka Samiir Wareegtooy had iyo jeer waxaan ku leenahay haddaad nagu cusubtahay waan kusoo dhaweynaynaa oo fadlan subscribe inoogu reeb haddaad hore noola joogtayna waan kusoo dhaweynaynaa walaal sidii caadada noo ahaydba insha Allah biidnillaahi tacaala barnaamijkeen way sii wadan doonaa haddii ilaahay ka raanada xigta kiliibkan xiga waxaan idinka codsanayaa fadlan yaan la dhihin macnaha waa maxay qofkan xumaanta uu macnaha oo banaanka keenay xumaanta ma jecli laftirkeega inaan banaan aan keeno ma jecli inaan macnaha ishaga oo bulshada aan la wadaago laakiin balse waxa damir ahaan markii aan la tashtay walaashayda macnaha dhinacayga fadhida aan la tashtay aan dhahay walaal macaan xumaanta tan had iyo jeer social media ku jirta wacyigelinteedana macnaha ay yar tahay
maxaan sameynaa ma ka wacyigelinaa ummadda Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed aabayaasha Soomaaliyeed gabdhaha dhalay ma ka wacyigelinaa yacni gabdhaha kaligeed xumaanta lama saari karaayo rag badan jira oo iyagana xumahana ku macnaha ku jira ee dhibaatooyinkana yacni dhibaatooyinka badan hadda waxa keena rag waaye laakiin sababtu waxa yeeshay dumarkii hadday macnaha ay asturi lahaayeen ay macnaha isdabooli lahaayeen run ahaantii isma dhaheen aniga macnaha nin wax buu sameyn karay laakiin waxa dhibaatada keenay waxay tahay gabadhii haddii cawraadkeeda banaanka ay soo dhigto waxaa laga yaabaa nin inay faa'iidadiisa tahay oo macnaha u arka inay faa'iido u tahay oo had iyo jeer indhaha ula raaco oo guriga galaysa macnaha ula galo sidii ku heli lahaa lacag baa kusoo xilgashto ama si qaldanba macnaha u isticmaalee uu raadinayo wadadu macnaha qoftaas uu ku heli lahaa marka kilibyadan soo socda nala daawada bal insha Allah hadii ilaahay kana nada markaasna waxaan rabnaa in aad ka soo hadashid commentida aad macnaha aad noo soo qortid wixii ra'yigaaga ah bal haddana gabadha xigta bal fiiriya aakhir waxaan tusayaa raggii oo macnaha iyagana aysan meesha aysan ka marneen bal horta gabdhaha nala daawada farxadayda doonay دار نوشيد داري قديقة حمسة هيقا دابا إبتي شوي دورا ديش حتى يدوني اوكي كليب كان أصير وضع أركتان من فضلكم وإحسانكم وحين لأن هاي قبل أنها درتان وحي سمينيس كل إن شاء الله بإذن الله تعالى حدوبان ogaan doonaa wixii macnaha ray ahaantaada marka fiidiyoyada kulligood macnaha waan idin soo qaadayaa haddii ilaahay kara naqda gabdhaha qaabka macnaha ay iyaga ay ragga ay macnaha ay isugu bandhigaan ay macnaha ragga ay ugu leeyihiin yacni na arkay u leeyihiin marka TikTok dhibaatadu leeyahay halka nagala daawada insha Allah biidni ilaahi tacaala wax yar kadibna insha Allah waxaan idin qaybsan doonaa fikradda aad ka qabno anna ahaan ray ahaanteena ani Najax Cali بإذن الله تعالى مركا كليب كحيان نرى دعوة قبلها لوضع سدح ذا قبلات وحيس سمينا ينبل نرى في صدا شدوا دبسيو إقاد يانا دي عنا دفا قف سكرس وو هذا كبدق ستوس أفكاقنا كلوس ستوب هذا الكبدن بوس يو بوس هذا الكبدن بوس ديشا حسن waxaan ku leeyahay horta gabdhaha Soomaaliyeed waxa ilaahay ku manaastay meel qurux badan jir qurux badan صح waxa ilaahay ku manaastay soo jiidasho ay leeyihiin oo yani uga duwan yihiin dumarada kale laakiin badeecada markii lagu daadiyo suuqa waa aan yani kasta way haminaysaa suuqa isdhiga saar xal ma aha hooyooyinka waxa la yeesaan xalka laga bedelo aabayaasha waxa la yeesaan xalka laga bedelo aabo walba waxa laga rabaa inuu kontrolo gurigiisa aabo walba waxa laga rabaa inuu ogaado inantiisu waxay ku sugan tahay aabo walba waxa laga rabaa telefoon gabadhiisa waxa ay hay'ada yani ay ku sameynayso inuu ogaado xiriir walba leedahay inuu ogaado waa inay la saaxiibaan waa inay ogaadaan meel walba maraysa ay ogaadaan si fiican run ahaantii wili hoosha kama marna maadaama TikTok aan galnay waxaan ka soo qaadanay macnaha inkastoo TikTok hadaad gashid aadan ka helin waxyaabo fiican oo inta badan xumaanta ay u badan tahay inta yaro macnaha waxaan ka soo qaadanay dumarka macnaha sida ay macnaha isku muujinayaan ay iyaga had iyo jeer ay jecel yihiin in ay macnaha bulshada isku horgeeyaan meeshii wanaag ay isku horgeyn lahaayeen xumaan ay isku horgeeyaan bal nala daawada kilibkan kala xiga I feel أبيد قيل كوما بضو أبيد قيل كوما waxaan ku leeyahay xasano ilaah baan kugu dhaarshay ninka shisheeyaha ahaado oo nin sokeeyaha ahaado ee gabadhaas ninka arka oo maanta arko saa u daawada ama u arka live u arka ma daynaya hadduu jaanis ku arko wallahi inuu daynay okay waa kulli fikraddiin waa idin karabna hadduu ilaahay karaanada inaad ka dhiibisaan marka waxaan rabnaa sidii aan kaga hortagi lahayn waxyaabahan oo kale in aan mas'uuliyiinteena aan gaarsiino maxay ku gaaraysaa waa inaad sii sheergelisid aad like saartid oo hadduu ilaahay karaanada fikradaada aad la wadaagtid had iyo jeerna macnaha haddii intana daawanaysa keliya hadday macnaha like saarto ay sii sheergarayso
inta haddana daawanaysa macnaha baggeena youtube-ka nagu xiran in la mid aha si daawo doonta intaasna in kale usii gudbin doontaa markaas kadib waxaa laga yaabaa wacyigelinta aan waa sameynay in ay waxtar ee keenta laakiin haddii adi keligii kuu koobnaato waxaa laga yaabaa inaysan meelba tegin ee macnaha dadkii walaalaheena soomaaliyeedna macnaha aysan u ahayn sidii uu uga dhammaan lahay kursiga hooyo kastii aabbo kasta waxaan leeyahay barnaamijkan tiktok ka ilaali awlaadaada fiiri taleefanadooda fiiri hadduu tiktok ugu degsan yahay ka masax ama teleefon neeclowga hadday gabadhaada macnaha aad ku aragtid qaab isjijibin iyo isqalqalloocin iyo waxaas aad ku aragtid teleefonkeeda had iyo jeer dabagal ku sameey hooyaa tahay mas-uuliyad baa kaa saaran ciyaalkaas aabbaa tahay mas-uuliyad baa kaa saaran ciyaalkaas waxaad samaysaan taleefanada gabdhihiina ay wataan gabdhaha dhasheen ay wataan control ku sameeya hala controlo waxaa idin leeyahay hala controlo tiktok gabar kastoo isticmaalaysa aad aragtaan hooyo kastoo waxaan ka codsanayaa inay macnaha ay ka masaxdo tiktok iyo snapchat labadaasba waa labada macnaha ay gabdhaha ka bixiyey waddada ka bixiyey labadaasay u badan yihiin iimaha iyo hadduu ilaah kuulan yahay iyo whatsappka iyo waxyaabaha ma laha aqlaaq xumadaas ma laha laakiin balse waxa ugu daran waa tiktok iyo snapchat labadaas waxaa laga ilaaliya gabdhaha wallaahi waa taan la yaabanahay yacni soomaalida waxay hal meelay wax ka aragtaa meeshii wax ku aragtana way ku yaacdaa laakiin hadda soomaali waxaan u arkaa inay waddada cadaabka wada saaran tahay والعياذ بالله إلها كما قلنا بل اسكدا وحكا اسكدا دتك ووينا اسكدا عيال ير بل نرد على ضغطين عن أرضي المقدسو امتحانا كل عنا عبد الله مركز قول برا كمسؤول عن الليل أيوه أرضي المقدسو وكوانا أرضي المقدسو وكوانا امتحانا الرامر كاسينو حسن يعني هذا العيال كان يوا سيالدر سيددر صح إنك يجينا أمالنا بعدين يجينا أمالنا أضرب تاعي شارع ووطن أحد ضوء مركي دكسي عادي لهايين مركي وحبر لهايين مركي يعني هذا مسكح ضد يقول له دين الإسلام وحاجة هس وحاجة فصل بل فير جبرت يرسوق عنده وغواء وكل وريدنا هندي يسوق في سنة هندي يلقبه horta waxaa ka dambeeya horta wax walba dhibaatadeeday leedahay horta qofka videogan duubaya ciyaalkan video ka duubaya kulli waa qof caqli leh laakiin guriga waxaa ka galay fuyuuskia marka wuxuu galay in ciyaalkii yaryaraa xitaa heesaha la baro oo la yidhaahdo hees idinkoo heesaya waddada shaarac dhexdiisa guri xitaa ma ah banaanka intii hees loo shida la yidhaahdo ciyaara saan u wareeji saan samey inta samee lah marka maxaa noo dhiman marka waxaa noo dhiman aan meesha oo le يعني واكب احنا وددي صومالي نمدو دقنكي صومالي نمدو وان كبخنا والله meeshaan ku socon ilaahay baa subxaanahu watacaala og ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu fidnada naga ilaaliyo awlaadina ka ilaaliya oo macnaha wadada saxda ilaahayna tusa ilaahay biidni illaahi tacaala ilaahay baan ka baryaynaa taas maadaama hadda macnaha idin soo tusnay dumarkii say ahaayeen idin soo tusnay bal raggina xagee jooga raggi qaarka xitaa raggi laftirkooda annaga ma dhihin dumar keliya ma ataageene raggiina qaarkood maadaama dumarkii aan soo aragnay raggana maxay yihiin ninka ragga asaga laftirkiisa muxuu yahay lafti ahaantiisa muxuu yahay bal nala daawo kilibkan adaa yaabaye dhibaatadii jirtaa waxaa hadda waa raga dhexday iska haystaan waana kiraya midkii kale musqusha kasoo baxana wuxuu watay intuu tuuro la niijiyey marka ubaxa yaryaroo gurigaas kasoo baxaya bal maxay sharaf keenayaan wuu arkaya wuu u fiirsanaysaa gabadha yarada u fiirsanaysaa inanka yaraa wuu u fiirsanaya berri waddada ay maraayeen ay maraayaan
أنا ماشي waxaan ka arkay nimankan macnaha isku dhigay yani meeshiba macnaha waa naag la'aan hayso way gabdhiin waxay tusooyiin inay macnaha shaqaaway in awraadkoodii wuxuu macnaha soo dhigeen banaanka soo dhigeen ragiina iyaga isku dhigeen iyagii ayaa isku dhigeen subhanallah iyagii isku dhigeen oo ninaa wuxuu matiro naagu matirooya wuxuu sameeyay gorgoro amal oo macnaha macuusiisa u gashtay wuxuu naagu iska dhigo saas u warwareeganaya ninna wuxuu iska dhigay ninka la iska dhigay asna kana xariif musqush ka soo baxay sheekada oo macnaha aan war u hayn meesha lagu nikiraa asna nikadii dhinac iskara hay nimanka noocaana haddii ay arkaan gabdhaha hadda aan ii soo tilmaanay aan ii soo tusnay bal ilaahay ku dhaashay nin walba muxuu ka aaminsan yahay gabadhii macnaha isqaawisa banaanka iskeenta horta ray ahaantaada ma kula tahay gabadh awraadeeda banaanka soo dhigtay nin akhlaaq leh sumcad dunida ku leh oo sharaf leh iimaan leh ma kula tahay inuu macnaha guursanayo waa may Soomaali waxay tiraahdaa wax la yaqaan guurso si ay ku dhashaan wax la yaqaan ku dhashaan okay gabadhaas isqaawisay awradeed banaanka keentay banaanka soo dhigtay ninkan macnaha meeshaan qolkan nimankan isku xirtay oo iyagana isla nikinaya oo ninna naag matalaya ninna matalaya hadduu ilaahay kuwaas iyaga leh macnaha ninkaas wuxuu dhalay iyo gabadha qaan waxay dhashay iyagoo kale le ka soo dhaxbaxay iyagoo kale yaa ka soo dhaxbaxay okay maadaama aan ku tusnay videoyadaas badnaa aan ku tusnay bal ragga yaan weli ku jirnaa markuu ninkaan nala daawo nimankaan nala daawada insha Allah biidni Illaahi tacaala si aan macnaha aan u raadino sidii anaga aan u heli lahaynay wax fiican oo ummadda Soomaaliyeed ku dhaqanta bal nala daawada wiilashaan iyagana كلمتين كلمتين وتكافي كالجعيلتها كلمتين كلمتين وتكافي كالجعيلتها يا حبيبي هواك جنني وحبك يحيرني كلمتين كلمتين وتكافي كالجعيلتها كلمتين كلمتين مرغانك لبتي على غلطنت على قشطة ولا مرغان ويا نكاس مرغان سن حدوش كان سنة قبلي هذا عم سميت كم إذا حدوش كان سنة محوك أمينة والله هذا أسيلي هذا العمر ويا مرفي عن عمر وسنة لكن مرفي عن معها بريتو مركع عصو يعني وقت كدمر قبلي وصح سنة يا ولو سوداء يا نور ما كل تاينو كتجاي مر اوكي لو كل markuu sameeyo waxa waaye yani waa marqaansan yahay waa inuu dantiisa ka gaara gabadhan Soomaaliyeed markii waxaan leeyahay gabdhiina Soomaaliyeed wallahi aad iyo aad aan aga xunnahay in dhibaatada xaqiina ay u badnaato mar walba waayo hooyooyinkeena tihiin walaalaheena tihiin zawjaadkeena tihiin aad iyo aad wallahi alcadiim aan aga xunnahay in dhibaato yar idin soo gaarto waxa waaye nin reer leh ayaa dareemi kara dhibaatada macnaha ee dumarka Soomaaliyeed ay ku nool yihiin guriga hooshay ka hayaan dhibka ciyaalka koriyaan rafaadka ay u maraan wax walba waxa dareemi kara wiilka Soomaaliyeed ee guursaday aabaha Soomaaliyeed ee reerka dhaqanaya awlaadda dhalay inta ayaa dareemaysa dhibaato intaas kugu filan dhibaato kale in lagu daro ma aha laakiin balse waxaan ka codsanayaa fadlan waxa tahay luul oo dunida dusheeda la keenay tahay ee ha iska dhigin dooli bisad raadsanaya ha iska dhigin oo hadii jeer ahaaw gabar asturan ahaaw nimcad Ilaahay ku siiyay qof ku xamdisa naqo waxaan ku leenahay walaal qaali Ilaahay ha ku xafido isxafid hadda xifdisan tahay idna kuma soo dhawaanis laakiin hadda xifdisaneen waxa waaye qof walba ayaa ku waarsanaya cambar geedka cambarka la yiraahdo waxa u waarsata noolaha dunida ku nool oo dhan Ilaahay cambar ka mid dhigay cambar ayuu Ilaahay kala mid dhigay cambarka lama helo si fudud laguma helo bini aadanka raadiya xayawaanaadka raadiya
jinkaa raadiya qof walba ayaa ku nool waxa waaye cambar baa ilaahay kaa dhigay waxa waaye naqo cambar aan la helayn ilaah baaba kaa dhigay cambar kaa dhigay maxaad raqiis iskaga dhigay maxaad iskaga dhigaysaa macnaha qof nolosheeda macnaha aan qiimo agteeda ka lahayn nolol fiican aan leedahay qiimo fiican aan leedahay ilaaha ku siiyey wax anaga aan ku siina ma aha waa wax ilaahay kuu mataystay ilaahay ku siiyey ku xamdi ku shukri زوج في عن أصالحات هليسا نرش كل قبصة أولاد كل كوريا دبعت أنا كور سيدين ورب العزة بنكو شيء مايا حداد معناها سيدا أنا الإسكب الدليل سيدا عالتهاي والله العظيم كو الله كلا كويلايا نرش هذا بربر بمعنى والبتاجنان يسا واحد عشان سيدا إنك أتنقطين وكلا إيه نقنايان إسكا إلالية نرش تن ميل أسعة لما يقانا قيمنا الدنيا كملها لكن adiga ahaantaada shakhsiyadaada intay naftatan ay ku jirto qiimo ay kula leedahay laakiin bari marbaysan qiimo la'aan ay noqon doontaa qiimo aysan lahaan doonin qiimo intay leedahay qiimo u yeel adna sharafkaaga iyo cirdigaaga badbaadso waxaan ku leeyahay walaal aan ku jeclahay waxaan ku leeyahay walaal aan jeclaha tahay waxaan ku leeyahay is astur wixii macnaha dembi naga dhacayna allaha naga qabto nagama xumaan inaan faahfaagna ee wanaagga raadiskeeda naga tahay marka waxaan idin leenahay najaxay ku darso waxaa ku darsan lahayd waxaan leeyahay ilaahay ku xaftiyo jirkaaga qaaliga walaal macaan waxaa tahay walaashay qaaliya jirkaaga astur waxaan halkaan idinkaga mahadcelinaynaa daawashada sharafta leh aada nagu daawateen ee waqtiga aada noo siiseen waqtiga idinkugu soo gelinay barnaamijkan waxaan ku leenahay fadlan sii sheer garay la wadaag asxaabtaada fadlan haddaad nagu cusub tahay waan kusoo dhaweynaynaa subscribe inoo saar had iyo jeer waxaan ku leenahay kusoo dhawow janalkeena Samiir Wareegtooy la wadaag ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto si annagana dhiirigelin ay noogu noqoto like noo saar insha Allah biidni Illaahi tacaala waan idin salaameynaa wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.